saalaxow adaa soconayo qaatay sahaydii salaama alla yeeliyow haddaad saaxil nabad gaadho sawdiraan ku faro iiga gee saynab waad heliye saqda dhexe allaylkii hurdada waan ka sararaadheh soortana ma cuno aawadaa saa'imsaan ahaydheh 3 goortii aan qado ayaan subax qureecdaadheh waxaan sarara weynaa baryahan samay ka dhuubnaadheh saraawiishi waa iga bateen igu samaysnaadheh hadba aniga oo soconayaan sare u qaadaadheh salaan qura haddaad soo dirtoo subaxda ii keeno adigoo sariir ila fadhiya kama sokayseendheh sidii aan santadi gaarahoo saami lagu qaybshay jidhka gaariyadan kaa dayaasaan u taagnahaydheh ma samrine sidaad ii ogayd waan ku sugayaa. fursadaha lama dayacay ka mid noqo dadka joogtada ugu xidhan Henaagis. Ku xirmo baraheeda bulshada oo ka qayb qaado tartamada fudfudud ee ay qabato Henaagis. tartamada fudud maxaa loola jeedaa? su'aal yar aan ku weydiiye nambar 3 labada nambar ee ku xigta intaad ka boodo sheeg nambarka ku xiga. waa 6 soo maaha. bravo si fiican ayaad uga jawaabtay. nambar 9 saddexda nambar ee ku xigta intaad ka boodo nambarka ku xiga sheeg. oo miyaan garan waayaaba 13 miyaan ahayn. intaaba haddii aad garan karayso tartamada fudfudud ee lagu sheegaya waa kuwa waad ka qayb qaadan kartaa oo dadka joogtada uga faa'iideysta oo faa'iido abaalmarinada ayaad noqon kartaa. qish kale aan ku siiye dadka fursadahaas la siinayo waa dadka booganaga subscribe uu saaran yahay oo kaliya. YouTube ma lagu qabanayaa, Facebook ma lagu qabanayaa, TikTok, Snapchat iyo dhammaan baraheena bulshada. ka mid noqo dadka ku xiran si aad markaa iyada kuwa ka faa'iideysanayo uga mid noqoto abaalmarintana ugu guuleysato. baraha bulshada midka lagu qaban doono gadaal ayaa laga sheegi doonaa. dadka ugu horeeya noqo waa fursadaha iska dayacay abaalmarinada la bixinayo iyo waqtiyada la qabanayaba sawirka ku xiga ayay kaaga muuqdaan. qorowgar